السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواذا باشا بانتوذا سو دواذا وولالكين ويحيى شوكو عامر أما يحيى عبد الرحمن عامر walaalyaalow soo dhowaada biryahan ismacaynan arag maanta waxaan rabay inaan is aragno maanta shirkan waxaas ku saabsan yahay khayaanada iyo hagardaamada ay nagu hayso dowladda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre dowladda uu soo dhisay uu madaxda ka yahay dhibaatada ama qaharka ay noo horseedayso maanta beeshayna maanta baantuuda ah aniga jareer weyne ma dhahay jareer weyne magacaas qof khaa'in ah oo hadda dhintay ayaa beesha ku dhejiyey annaga runtii markaan isu sheegno gaalada dadka dhulalka sahmin jireen annaga waxay nooga yaqaanaan baantu maxaa soo haray dadkaynii horena waxay magacoodu ahaa shanta shambara jareer intaas unbay ku kooban tahay laakiinse hadda waxaa dhici haysaa ninkaas asagoo ka soo horjeedo magacaasayto oo gaaladu nagu aqoonsanayso asagoo ka soo horjeedo ayuu magacaasayto noo bixiyey waad mahadsan tahay maslax abuukar haaji muuq suudaani aadan kuu rabayba axmed geedow kulligiinna sheer dhaha maanta wax baan idin sheegaa meeshaan waxaa waay horta dalkan annagaa iska leh magac qof noo bixiyeyna inaan ku adeegsano ama meel aan ku tagnana walaalyaalow ma ficna magacayna qaaliga ahana inaan dayna ma aha jareer weyne sax waay jareer haddii aan shaksi ahaan tahayn jareer weynaa jareertii oo isku tagtay waay jareertii isku tagtay waa kuway jareerta isku tagayso waay marka siis noo kala qaaday fiiriya jareertiias kala qaadayba oo hadda wuxuu ku leeyahay isku yimaada ahaan isku imaada jareer weyne waad mahadsan tahay abwaan yaxya maxamed waad mahadsan tahay sheerdhe adeer inta adiga facebooka kugula jirto say u arkaan ama ay u dhegaystaan marka walaalyaalow annaga dawladdii horena waa la soo shaqaynay alxamdulilah rabbialcaalamiin laakiin dawladdan maanta aniga lamana shaqaynay laakiin anaaba nin xanuunsan ah hataa haddii la yidhaahda la shaqayna aniga la shaqayn maayo waayo dhe waa dawlad qabiilayste waay koow tan labaadna waxay noqdeen dawlad koox ah kooxdaasoo ah dad qowlaysata ah oo adduun weynahan say u joogeen maraykankan ingiriiskan norway ay u joogeen ay ku hungoobeen oo maanta waxba ay ku waayeen yah ayay waxay isiraadeen war maqaaxi ka shita soomaaliya maqaaxi ka shita dadkii soomaaliya dabbaal ahee maqaaxi ka shita waayo dhe nin walba meeshuu joogo xasan cali khayre xaggaasuu ku yimid farmaajo gobolkan aniga aan degganahay ayuu ka tagay khaasatan magaalada buffalow maqlin meeshan cid isjoojinayso ama cid isnahariisanayso midna ma jirto laakiin dadkaygana way hurdooyin dadkayga eeg dawlad waxaa lagu noqon karaa ugu yaraan markaan u soo qaado 3 shay soo qaada ugu yaraan ninka waa inuu tacliin lahaadaa koow
ninka waa inuu xoogga macnaha ciidamada waa inuu ku dhex jiraa. aadan isaaq waa salaaman tahay sheer dheadeer. waa inuu ciidamada ku dhex jiraa qofku, waa inuu ciidamada qayb ka ahaadaa. 3 waa inuu dad lahaadaa, dad loogu cabsado oo macnaha haddii cod la yidhaahdana oo cod bixin karaan dadkaas inuu lahaado waay. warka anaga dad cod bixin karo waa leenahay. haddii cod la yidhaahdo nin shabeellaha hoose deggan, shabeellaha hoose qof deggan ya meeshiisa markii oo la yidhaahdo meeshaanayto codaa la qaadaa, war nin habargidir meesha waxba kama qaaday, nin sheeqaal nin abgaal waxba kama qaaday. markay isku duubnaadaan waa ayaga oo xisbi loo kala jabsanay oo lacag lagu gadanin. ilaahay hanaga haya taas. maxaa soo haray? jubbada hoosaa soo hartay, been habartooday ka tahay. axmed madoobe waxba kama qaaday, axmed madoobe waxba kama qaaday. haddii ilaahay laga cabsanayo waxba kama qaaday. okay, khayr allah ku siiyo bantu viva. ereygaasaan jeclahay ani, baantuudaasaan jeclahay. ama waan waayey shambaraan jeclahay. waxaan jareer weyne maskaxdayda waaba ka xanuuntaaba. marka okay, koowdii tacliintaan ku soo qaadanaynaa maanta. annaga dadkayna tacliin ma leh. jaamicadaa jiraan hadda xamar, dad baa jira hadda xamar, reer xamar oo dhalad ah xamar joogaanaa jira. ninkii aan gaaday aan sugay hadduu ii soo galay miya? cabdirasaaq waa salaaman tahay adeer sheer dheh. waxaad arkaysaa jaamicadaa jira xamar, qaybta tacliinta markaan ka hadalno dhaliilaha annaga aan leenahay oona rabno inaan wax helnana aan rabno. horta dadweynahayna inaan macnaha oo maanta aan wax tusno way fiican tahay. qofka hadduusan dhaliishiisa sheeganna dee ma toosayo. annaga khaasatan markaan baantuunahay dhaliil baan leenahay. dhaliishayna maxay tahay waay? xagga waxbarashada horta dhaawan ku nahay, waa aadan uga dhacsannahay. waxbarasho ma lihini, carruurtayna waxbarasho ma leh, dadkayna waxbarasho ma leh. ma maqlaysaa? waa ordoyna, waa nala xamaalanoy. war ayagaba ayagoo oo jab roodhi cunayaan ayay baxaan oo waxbarasho raadsadaan. warya ma naga naf adag yihiin ayaga kaale? maya waay, doqonnimo annagana hayso waay. war niman yahow, qodobkan koowaad aan idin sheegay oo waxbarashada ah ya haddii annaga aan ku dadaali wayno, waxbarashadaas haddaan ku dadaali wayno, annaga iyo dawladnimo waan kala dheernahay. gobolaan leenahay iyo degmaan leenahay iyo 9 gobolaan leenahay iyo kaas ka kac. waayo dhe qalinkii aadan wax ku cuni karinba degmada aad leedahay maxay tahay waay? ya qalinkaaba lagugu xadooyaa aadan waxba ku helaynine. maxaa waay wixii aad degmadan aad sheeganayso? maxay tahay tuuladan aad sheeganayso? maxay tahay gobolka aad sheeganayso? maya, never, ma jiro waay. war niman yahow, dadkaayna oo dibadda jooga aan ku hanuunino dadkayaga horta inay wax bartaan. inay wax bartaan horta beeska ugu hooseeya laga soo bilaabi karo horta waxbarashada waay. waayo dheh 27,000 oo arday baa la sheegay sanadkii hadda aan soo dhaafnay inay, ama sanadkaana umalayna inay u fariisan doonaan imtixaan dugsi sanadeedka Soomaaliya. wallaahi billaahi iyo tallaahi fasallada markii aniga oo ayadoo wafdi si socdo aan arkay, hal nin baantu kuma jiro. hal nin baantu kuma jiro fasallada. hal nin baantu kuma jiro. maxaa sababay waay? waxay ilmaha ka dhacsan yihiin xagga waalidiinta. marka anaga ilmaha dugsigaba waa la geeyaa. sida dugsiga loo geeya haddii ayadana saacado kooban hadday iskoolka dhigtaan ya kolay wax un bay heli lahaayeen, saacado kooban.
ها ninka la leeyahay Kamaal waxa soo qortay waa ku arkay Soomaalidu waxay dhahdaa muhubsato mehir male muhubsato mehir male nin webi ku dhacayna haddaad tiraahdo webigan ka soo bixi haddaad istiraadidna aduu webiga ku laqsiyaa marka taas waxaan ula jeedaa adiga marka aad leedahay adiga maxaa wax u baran weysay oo ciyaalka way kugu dayan lahaayeen iska ilow marka adiga aad leedahay aniga ciyaalkayga wax intaan wax bari karo waan baray qoyskaygana intay wax baran karaan way barteen waxaan aniga u dagaalmayo waa dadkaygii oo masaakiinta ah haddaad adiga qof jileecaad tahayna inaad soo gasho ma ahayn walaalow waayo idinka sidiinaba waxaa way tuugaad tihiin waxaad jabsataan dadka heer waxaad gaarteen wixii xatooyada kale intaad ka soo baxdaan inaad dadka facebookyadooda aad jabsataan mar haddii adiga markii horena ani mawluucayga uu ahaa dadkaygaan la hadlaa haddaad adiga dadkayga ahayn maxaa halkan ku soo dhigay waay halkan maxaa ku soo dhigay waay haddii adiga dadkayga tahayna maangaabaad tahay kow dheh Kamaal adaan ku sheegaya maangaabaad tahay qoyskii aad ka dhalatayna ama aabbihii ku dhalayna waa maangaab waayo dadka mar un hurdada kuma wada soo kacaan eelay waad ogeydeen wax kastaa lagu sameeyey markii dambe waxay tidhi haddaa hurdada ha ka kahi marka ereygaas inaad ku hadashid ma aha waayo haddaad saa u hadashidna qof adoo kale maangaab ah ayaa kugu dayanaya annaga meeshaan facebookan ugama yeeranin wax la yidhaahdo maangaab inaan dadkayna ku hanuunino ayaan rabnaa adiga ereygaaga halkaasaan uga baxay waayo warkaaga war hadde la qaadi karaba maba ahanba okay tan labaad waay waxaan idin dhihi lahaa dadka ku hanuuniya maadaama markii hore u ahaa mawluuca dawladnimo waxaa lagu heli karaa tacliin askari iyo dad tan dad askarigan gela askariga waxaa waaye dawladda dhanba waxay ku dhisan tahay ciidanay ku dhisan tahay dawladdan lagu sheegay ciidan la'aan ma dhisanto dawladda weynba laf ahaanteeda ciidan la'aan ma dhisanto waayahay beesha ooynayso oo tala u ooynaysana ciidan la'aan ayadana tala ma heli karto beesha ooynayso tala u ooynaysana ayadana ma heli karto tala xoog la'aan ama ciidan la'aan tala ma heli karto aniga waxaan dhihi lahaa dadkii inta u soo baxeen waaba u soo baxeen dadkii inta u soo baxeen waaba u soo baxeen laakiin dadka xagga jiraan ninkii 4 ilmood haysto hataa hal cunug ha u quuro ciidamada ilaan hadduu ciidan galana ciidanka waa ku dhimanaa ma aha hadduu uu dhimanayana dad badan oo jareer baantu ah dad badan baantu ah ciidankii la raafay oo siyaad bare raafay oo la geeyay Itoobiya oo dhib kasta soo maray ayaa soo dhiman waayeen oo haddana qaar dalka jooga qaarna dibadda joogaan oo ilaahayna maanta oo wixii oo macnaa habbadii la sheegay inay ku soo dhimanayaan loo malaynay ay ku soo badbaadeen oo dalkoodii joogaan dibaddana joogaan oo qaarna shaqaysanooyin qaarna aan shaqaysanooyin marka war dadkiina meesha jooga odayaasha isku sheegayow oona dhaliil badanna la idinku haysto oo la idin leeyahay dadkay gataan magay cunaan la idin leeyahay bartaas intaad ka baxdaan ilmaha ku hanuuniya inay ciidan galaan ku hanuuniya ilmaha ciidan inay noqdaan ku hanuuniya waxaan adiga idinka aad meesha ku haysaan oo ogaadeenkaasaytood qaar dabada ula dhaqayo dharkoodii ula dhaqayo qaarna macnaa jowhar iyo bahalkii kalena sidoo kale war sidaasayto si maaha nabadna saa laguma helayo dawladnimana laguma helaye taas aniga iga haya wallaahi bilaahi tallaahina aydan dawlad noqonaynin intaydan haysan tacliin iyo askari intaad ka dheertiin dawlad ma helaysaan baantuuyey
marka sidaas ay noo ahaato askari ha la qorto ninka ii yidhaahdo wiilka askari maahan sirta aniga tayda ay tahay haddaad ogaan lahaydeen saasi ma dhihi karaysaanba waayo dhe cunugayga kii maraykan hadda joogaan aan ku iriiriyay inuu askari qorto oo hadda booliis oo meel MCS la yidhaahdo ayuu ku jiraa waxaan u dhahayna anaa og waayo dhe daraad dhow markii ciidamada maraykanka ay yimaadeen soomaaliya dad soomaali unbaa la jiray haddaad dhahdi af soomaali aadan aqoonin aad dhahdi intaadna lagu dhibooya ayagana waxay leeyihiin wuxuu ku leeyahay inta annaga waa ku fiicannahay sidaana nala yeela gaalkii adiga dhib u sheegatay wuxuu ku leeyahay guud laakiin haddii oo halkaan aniga aan dhalay ilaahay amarkiisa hadduu baaso oo ii tago soomaaliya haddaba dad ileen nin turjumaan iyo wax noocaas unbay raadini doonaane oo xagga ii tago dee dadkoodu waa u gargaarayaa walaalayaalow dadkoodu waa u gargaarayaa okay taas xaggaan uga baxaa tan saddexaad waxay tahay waxa la yidhaahdo dadka nin dad lahayn dawlad ma noqdo taas waxaan ula jeedaa shabeellaha hoose habargidir hays wareeriyo jini hays wareeriyo shabeellaha hoose sidoo kale hiiraan sidoo kale jubbada hoose sidoo kale doorasho dadban khayaano waay doorasho dadban haddaad maqashaan waa khayaano wax soconay ma aha waa khayaanadii oo maanta ay soomaaliya ay nagu haysato waay doorasho dadban doorasho run ah ayaa iman doontaa ilaahay haddii raalli ka noqdo doorashadaas runta maxaa lagu helaa waay codaa lagu helaa codkana yaa wataa waay dadkaa wataan dadka cod haddaad aad maqashid waxaa wataa dadaa wataa okay waryaa hooy dadka wax u sheega ilaahay ha ka cabsadaan lacag ilaahaa siinaa ilaahay ha ka cabsadaan nolol ilaahaa u hayaa cid xabad ku dhufan doonto ma jirto cid waxaa macnaha dhib u geysan karto male waayo dhe haddaba boob baa socdaa waxaa lagu leeyahay xisbiyaa haddaa la diiwaangelinoyaa xisbiyo haddaa la diiwaangelinoyaa marka aniga waxaan jeclaa dadka shabeellaha hoose dega dadka shabeellaha dhexe dega dadka hiiraan dega dadka jubbada hoose dega inay baxaan hamar ay tagaan xisbiyo ay samaystaan inay xamar tagaan xisbiyadaa la diiwaangelinayo inay xisbiyo samaystaan ayna isku hallaynin kuwaan hadda maanta oo la leeyahay xildhibaano waay oo xildhibaano dadban lagu soo doortay war dadweynow ha isku hallaynina kuwaas waxaa lagu soo doortay doorasho dadbanaa lagu soo doortay waa xaaramiin wax fiican ma ahan kuwaas waa dad u shaqaynaya waay dad jileec u shaqaynooyin waay wallaahi billaahi tallaahi ninkan dad baa idhihi haya hadda sida kan oo kale kamaalkan waa iska hadlooya dad badanaa idhihi hayaan laakiin haddaan dhintana waa laga wada hadli doonaa haddaan noolayna waa laga wada hadli doonaa taasoo ah waladan xildhibaanadan oo jareerta oo la geeyey xamar la geeyey oo bariisku ku cunayaan war xisbiyadiina ka ilaashada idinkaba waxaad leedihin awoodaad leedihin xisbi waa samaysan kartaan xisbi samaysta xisbiga markaad samaysataana kaalay haddana ilaa iyo 2020 la sheegayo laga gaarayo dadkiina waxaad yeelayseen macnaha xanuuniya wax u sheega waayo aniga waxaan soo jeeday doorashadii ugu dambaysay oo siyaad bare xilka ka qaban doono ayaa waxaan joogay tuulo oo Makalaango la yiraahdo oo degmada Jamaama ka tirsan wallaahi billaahi tallaahi jaareer waa la kala gadanayay xisbi la yiraahdo dab iyo dhagax iyo xisbi kale ayaa iga maqan asna
ayaa jiray Umar Macalin nin la yiraahdo iyo ayaa wateen Umar Macalin kaasayto lacagu la yimid tuulada dab iyo dhagaxna waxaa watay Cabdi Igaal Jaamac nin la yiraahdo Mareexaan asna lacagu la yimid labadooda ayaa tartamayeen meeshii waxaa timid lacag si lacag loo kala tuuray alxaasil Cabdi Igaalkiyaa laga adkaaday ninkaas ayaa soo baxay Mareexaan uu ahaa isla markiina waaba tii afgembiga walaalayaalow meelaha kale intaan ka hadlayno dadweynahayna waxaan u sheegno inaan inta soo galno Facebooka aan qosolno ama group aan samaysano lagu wada hadlo lisku aayo waxba ma taray ay maxaanba dad ayna annagaaba nalagu dheganba cidaana nagu dhegan khaasatan ninkii oo faalinayow taas xaggaan uga baxa dawladda Ali Khayre iyo Farmaajan gela Ali Khayre iyo Farmaajan gela warniman yahow annaga dadaan nahay hadda dadkii hore dad tacliin leh ayaa jira tacliin leh oo dibad ha joogo ama dalka gudihiisa ha joogo ya war aniga waxaanba la yaabanahay Farmaajo iyo Ali Khayre ya tuugadan siday noo yaseen war dawladdii kacaankaaba noo rooneed ani siyaad bare la dhihi jiray sabab waxaan u leeyahay meeqa generaalan lahayn anaga meeqa janan aan lahayn anaga ya meeqa korneelaan lahayn maanta annaga hataa kabtan ma lihini waran idin sheegaa kow arrimaha dibaddan ka soo bilaabaa arrimaha dibadda hal nin jareeca baantuu ah walaalyaalow ambaasadoor ah soo sheega dadkii naga tirada yaraa sheeqaal ha noqdo habaadle ha noqdo mursade ha noqdo ayaa wada ambaasadoor ah walaalyaalow dawladdaas marka dawlad sax miya madaxweynahaas madaxweyne daacad miya waa calaamatu su'aal jawaabteeda idinka rabaa maamulka madaxtooyada Soomaaliya war maamulka madaxtooyada Soomaaliya anaga qayb kuma lihin miya war kuma arkaysid hal nin jareer oo maanta maamulkaasayta madaxtooyada meel xafiis fadhiya ma arkaysid ilaa aan ka ahayn asna iriiri ku joogo asagoo waraysi laga qaadi rabo uu leeyahay waraysi ma dhiibaan maqlay kii lahaa farmaajo ii geeya asagoo leh waraysi ma dhiibi karo aniga ma lii waraysan karo mana lii sabiri karo arrintaas meeshay uga timidna ma garanaya ani waa midkaas keliya ayaa kiyaaba iriiri ku jiraaba oo farmaajo ii geeya meeshu ku tagay ma madaxtooyada ma dadka unbaa iskale jile unbaa iskale miya dadkan timahooda adag waxba kuma laha miya idinkaa idin taallaa taasna ani iima taallo maamulka gobolka banaadir ma degana miya baantuu ma degana miya ya baantuu ma degana miya waayo dhe maxaa la dhihi jiray laba degmo xamar weyne iyo xamar jajab miyaa moogi waxaa loo magacaabay nin qolona carab la leeyahay carabta qolona la leeyahay cadcadka labaa loo kala saaray fiiriya labo maanta waxaaba naga awood badanba kuwii oo wax ka gabanayay jaqay ay ahaayeen kuwaasaa naga awood badan waayo dhe
laba degmo ayay madax ka heleen madax ka heleen laba degmo annaga aan degno ayagaana xukuma waayo dee annaga hamar weyne iyo hamar jajabaan ugu badannahay ma maqli labadaa degmo ugu badannahay haa farmaajo ii geeya waa tii ayaa iiga hartay macnaha iima dhammaystirna haddaan jawaabteeda aan ku siin lahaa ma maqli marka dadkaasayto cadcadkaas iyo carabtaas kor ka timid ayaa maanta gobernatore ka heleen degmada xamar annagoo dadkayna u dhashtay oo guryahaasayto badankoodana qaar ku leh ayaa maanta waxba ay ka waayeen dowladda farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan alkhayre haddayba daacad yihiin calaamad su'aalkaasna idinkaa idin yaala dadow okay maxaa soo haray gabdhaha dhibka loo geysto oo lagu shaqaysto waxaan u wadaa macnaha shaqaale ahaan dee quutul duruuri ayay u tagaan waxaan u wadaa macnaha gobolka jubbada hoose quutul duruuriga ay u tagaan lacag markay yeeshtaana naagihii loo shaqaynayay mooryaan intay u keenay leeyihin guriga ka bixi hadday ay keentona iidaaba la kufsan weyaaba gabdhaha in noo sii dheer haddana dil ayaa noo sii dheer yahay dil kufsi ya shaqo la'aan shaqadii dhanba waxaa isku koobay dadka jilecda isku koobeen baantuu waxba kuma lahaba warkii baantuu lagu leeyahay oo madaxena wallaahi billaahi tallaahi dhaarmoo madax ma ahan dantiisa iyo qofuu madax u yahay dantiisa iyo qofuu madax u yahay all wixii ka soo baxay jubbada hoose ka soo baxay jubbada dhexe axmed madoobay u shaqeeyaan hadday axmed madoobay u shaqaynaynin maxay uga tacsiyeyn waayeen dadkan la dilayo la dhacayo la rafaadinayo kii la dilo tacsi keliya maxay ugu diri waayeen dadkooda tacsi maxaa loogu waayey ama ayagoo le dilkaanayto oo raadiye ama miidiyaha soo istaagay dilkaanayto dadka yaga ha laga daayo ayagoo lena maxaa loo maqli waayey marka haddii intaas la waayey waxay u shaqeeyaan dadkaasay u shaqeeyaan dadkaas ayay u shaqeeyaan marka xabaadle ayaa degmada waa beri bal eeg fiiri degmada waa beri yaa u badan waxaa lagu leeyahay waa federaala lagu leeyahay degmada waa beri gobolka banaadir yaa u badan oo guryana ku leh imaatinka lama rabo laakiin degaan ahaan yaa u badan xamar jajab iyo waa beri way isdaba taxan yihiin marka waa berina waxaa madax looga dhigay waa beri waxaa madax looga dhigay nin oo maanta oo aabe muxuu ahaa horta bacaaw nin magaciisa la waayo nin sadaqa dhiibanaynin waa la yidhi waa nin oo duduble ah war maxaa keenay habar gidir eeg xamar jajab waxaa wax ka ah nin habar gidir ah waa nin oo ka yimid gaalkacayo ilaa iyo maxaa la dhihi jiray dhuusa war xilligii siyaad bare yaa ku arki jiray habar gidir ninka taariikh habar gidir haddii daawo la yidhaahdo laguma arki jirin xamar
haddana masaakiintii oo beeraha iyo dhulkaas lagu soo rafaadiyey dadkooda badankooda waxay joogaan xamarjajabay ku wada jiraan xamarjajabtii ay ku soo aruureen haddana nin habar gidir ayaa loo keenay oo madax looga dhigay war dhiigley ha looga dhigaba way iska celin karaan hodanna sidoo kale way iska celin karaan laakiinse xamarjajab iyo waa beri maxaa keenay habar gidir iyo xabaadle habar gidir iyo xabaadle maxaa keenay waa sheekadii oo maanta ay rabaan oo micnaha waxay rabaan ay ugu fulaan maxaa la dhihi jiray qoladaanayto oo maanta oo noogu soo duushay qolada noogu soo duushay Maraykan iyo Norway maqlay taabid waa dadkii meesha ninkii dadku ku cadaadin jiray safaaradda Soomaaliya ee Washington taabid uu ahaa alxamdulilah rabbil caalamiin haddana waxaaba laga dhigay guddoomiyaha gobolka Banaadir hadda walaalayaal hadal badan xaan ma buuxiye annaga waa nala dilay waa lana dhacay si kasta nala yeelay taasna waxaan iskaga celin karnaa oo keliya tacliin ciidan iyo dad shacbi oo cod bixiya cod markii la gaaro codka aan codkiisa iibsanaynin ya oo musharaxiisa caadiga u dhashtay baantuuda ahaa oo siinaya annaga dhibaatadan saasaan uga bixi karnaa ka bixidda dhibaatadayn annaga ma dhowa maxay rabtaa way tabaabushay rabtaa tabaabusha intaan la gaarin waxaan la sheegayo in la tabaabushaysto nin meeshaas ku jiro maxaa la dhihi jira xildhibaan ah wasiir ah oo aan hadda xisbi suubsanaynin maba jiraba sharcigaaba 2 sano gudahooda ninka inuu xisbi ku biiro 2 sano gudahooda inuu xisbi ku biiro xildhibaan kasta wasiir kasta marka walaalayaalow dadkayna sidaa ku buraarijiya Jubbaland ha joogo maxaa la dhihi jiray Hirshabeelle ha joogo maxaa la dhihi jiray Shabeellaha Hoose ha joogo aniga ma dhahay macnaha baashii kale ma dhahay maxaa la dhihi jiray koonfur galbeed ma dhahay ani koonfur galbeed magacan koonfur galbeed Shabeellaha Hoose markaan u soo noqdo ha iska ilaaliyaan waa magac dibindaabyo waaye annaga waxa meeshan na soo gaarsiiyey runta markii la sheego waa eelay xaquuqdayna iyo xaqayna dhanba oo barlamaanka taa ku lahayn cidda dhacday eelay way waayo annaga waxaan lahayn hadday barlamaanka ayaga yihiin guddoomiyaha barlamaanka maxaa la dhihi jiray baantuudana iyadana ya inay yeelato ku-xigeenka maxaa la dhihi jiray barlamaanka waa wadays asaga si oo fursad looga helay maxaa la rabay asaga inuu yidhaahdo barlamaankaanayto sida sharciga hadduu yahay barlamaan loo tartamaya ma aha barlamaankaanayto adiga waqooyi wasiiraa iska leh xamar sidaana leh gaalkacyo sidaana leh maxaa la dhihi jiray dadkaana sidaana ay leeyihiin annaga marka waxaan leenahay inay yidhaahdaan ay ahaayeen kuwa dhintay Abdalla Deerow Isaaq iyo jinnigooda annaga ayaa iska leh ku-xigeenkana waxaa iska leh dadkan walaalahayna iska leh ma dhihin waxayna dhan ay isla aruursadeen aan isfahamno waxayna dhan ay isla aruursadeen haddana way wadeen aqli waxay soo ansaxsadeen aqli waxay soo ansaxsadeen wax la yidhaahdo koonfur galbeed waliya koonfur galbeed dan idin ma ahay reer Shabeellaha Hoose idinkaaba isku filan hantii haysataan dad haysataan ya odayn haddii la yidhaahdo how odaynina dadkaas haddaba xisbiyo samaysta dantiina fiirsada aniga hadalkayga waxaan uga baxaa
nin walbo dhankaaga ka duul haddii dadkan xabad aan wax uga qaadi waynay miidiyaha aan wax uga qaadno waxaan facebook la soo fariisanay oo lagu sheekaysanay iska daaya almeeno hataa laba hadal dheh dadkan way soo kiceenaa la dhahaa laakiin haddaa iska hurdaan dadkiina maanta oo waddamadan yimid aa iska hurdaan walaalyaalow taas dhibkeeday leedahay aniga awal mar kastaan soo geli jiray laakiin hadda beryaan waxaan u soo geli lahayd nin xanuunsanaan ahay marmar hadalkaan bakarayn laakiin markii aan is idhaahdo hadalka waad kari kartaa waa kan intan saacadood oo meeshaan idinku haya buway walaalyaalow raalli ahaada intaan idin caddibay inta facebooka ku jirta raalli ahaada teeda labaad waxaan idinka codsanaa yaa ilaahay xaggiisana khayr iyo ajar iyo sanaad allah idinka siiyo ha iyasina maxaa la dhihi jiray duubistayda sheer dhaha inta facebookyadiina ku jiraan say u arkaan hadda markaan ka baxo waan baara ani cabdirisaaq sheekhan gelaa muq ayaan gelaa maxaa la dhihi jiray kamaalka meeshuu ka soo jeedo ilaa aan arko waan gelaa ya maxamed waan gelaa adig intii meeshaan hadda ay igu jirto kulli waa gelaa hadday sheer dheheenna waa arkaa ani xoogna ma aha laakiin dantaynaa ku jirta dhaha dantaynaa ku jirta dhaha dantaynaa ku jirta dhaha waayo dhe dibaddan ninaa joogi jiray ninkii waa dhintay doctor enow ninkii arkay dadnimadiisa iyo ninkii arkay siduu wax u duubayey oo dadka war soomaalida sida si u shiix ugu ridayey ya maalin waxaan ogahay oo ka khudbadaynayo Canada jaamacad Canada ka khudbadaynayo wuxuu yiri Soomaali markaan joogay ani jareera li dhihi jiray sanweena li dhihi jiray adoona li dhihi jiray okay waxaan arkay niman badan oo carabtaas ka soo carareen oo ay leeyihiin carabtu markaan tagnay ya waxaana la dhihi jiray adoon saan inta meeshan markaan imaanay haddana waxaan uga nimid cusriyad waan qoslay buu yidhi waan qoslay maxaad u qoslaysaa la yidhi jilicsanaantiinaan la yaabanayo buu yidhi aniga waxaad sheegaysiin jaamicaddeeda waa soo maray waxaana ku soo maray agtiinaan ku soo maray agtiina addoonad idhah amaqle addoonad idhahdeen wax kastaad igu samayseen hadda maanta haddii addoon liidin dhahay dee maxaad ka diiddaan uu yidhi ay carabta aniga addoon ii dhahayseen waxaad laheedeen jaamacadda carabtaan ka tirsannahay jaamacadda carabta adoo ka tirsana addoon lagu soo dhahay carabaan ahay maxaad carab ku tahay ya warniyow dad jiraan nahay dad jiro ayaan nahay eega gobollada Maraykanka qaarkood eega inta dad joogta eega Afrika sidoo kale inta dad joogta eega Soomaalidaas xagga nagu gumaysato waa wax yar waa basiid ah haddaan anaga aan israano wallaahi bilaahi gebigoodaan wada cunay waayo awowyaashayna ayagoo wax yar ah ayaa iska celiyeen oo tiknoolajiyadana aan jirin war nimanyow meeshan anaga wax ka nahay ma garanaya ya ma jareertii hore miye ma baaba'day mid kale ma ilaah soo abuuray ma oga ya war biyihii ay cabbayaan lo'dooda biyihii cabbayaan lo' bay bixin jireen hadda annagana waxaan leenahay yaa naga celiya ilmahaynay kufsanooyin gabdhahaynay kufsanooyin saanay noqonooyin habadiid waay hadda jubbada hoose oo kale yaa ku xoreyna amisooman sugayna kana war 20 ruux iyagoo qori hadday qaataan oo geedahaas hoostooda galaan hataa al-shabaab kuma jirayso way ka soo bixaysaa waayo geedaha adiga waa taqaan asaga ma yaqaano hadal badan haan ma buuxsho waan idin salaamayaa 114 idinku salaamayaa muuq waxaan ka codsanayaa inaad ii soo gasho waayo dhe wax baan kaa rabaa inaan wax ku weydiiyaan kaa rabaa oo maanta oo haddaa adiga oo noocii aan u malaynaya haddaad tahay qofkaan u malaynaya haddaad tahay micnaha
saasan kaa rabaa inaad Suudaan joogtid in kale magaca Suudaanka siduu yahay ayaan kala Suudaan aan danka leeyahay aan wax ka rabaa mudaawad ayaan ka rabaa haddaad Suudaan joogtid waxaan rabaa inaan ku wareysto marka saasan ugu baxa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.